waxaan rabaa halka inaan uga mahadceliyo maamulka macallimiinta iyo ardayda dhammaan jaamacadda Jazeera gaar ahaan kuliyadda medicine-ka oo ka qayb qaatay maanta sadaqadan iyo taakulayntan dadka barakacayaasha ah kuna sadaqaystay wixii ay awoodaan iyo dadaalka ay bixiyeen waxaan idin leeyahay reer Jazeera iyo dhammaan jaamacadaha kale dalka inay ku daydaan dadaalka la bixiyay inay ku daydaan oo wixii ay awoodaan ay dadkooda walaalaha ee taagta daran ay ku kaalmeeyaan waxaan kaloo leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala idinka abaalmariyo miisaanka xasanaadkana idinku daro janno iyo wanaagna Allah subhanahu wa ta'ala idinku abaalmariyo anagoo ah ardayda jaamacadda Jazeera waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan dadka barakacayaasha u keenay walaalaheen tabarucaad intii ay awoodnay tabarucaad ma ahan in ay badnaatay in ay yaraato muhiim ma ahan inta awoodna u keenay waan ku faraxsanahay ayagana walaalaheen waan ku farxeen weyn noo duceeyeen waxaan fulinaynay barnaamij loogu magac daray taakulaynta barakacayaasha ee jaamacadda Jazeera meesha aan ka sameynayno waa kaam ku yaala degmada Kaxda taakulayntan marka dadka aan ugu talagalnay oo targetkeena waxay ahaayeen qoysas gaaraya ilaa 100 qoys qoyskiiba marka waxaan ugu talagalnay raashin isugu jira bariis sokor bur timir saliid iyo lacag alxamdulillah si nabad ah nagu dhamaatay waxa iska soo aruuriyay marka raashinka iyo lacagta waxay ahaayeen marka ardayda jaamacadda Jazeera qaasatan ardayda kuliyadda caafimaadka laga soo bilaabo ardayda sanadka u koreysay batch 5 ka ilaa batch 9 intaas ka wada qayb qaadatay sidoo kale waxa ka qayb qaatay dhaqaatiirta jaamacadda ka shaqeysa qaasatan dhaqaatiirta jaamacadda ka baxday sidoo kale waxa wax iska soo aruuriyay ayagana sidoo kale maamulka jaamacadda Jazeera si nabad ay hooshi inuu dhamaatay waxa lagu jiraa maxaa la yiraahdaa xilli Ramadaan ah waa ogtiin meesha aan joognana waa meel dad barakacayaal ku nool yihiin sida caadiyan ah jaamacaddu waxay sameysaa maalin walba oo jimcaha barnaamij la yiraahdo mobile clinic oo dadka masaakiinta ah qaasatan dadka u nugul caafimaadka inaan ugu tagno kaamamkooda oo aan halkaas aan daawo ku soo sameeyno marka barnaamij hore ee jaamacaddu u sameey jirtay laakiin maanta ka duwan oo ah in loo bedelay bedel kale ma ahan in maadaama xilli oo soonkana gabagaba yahay waxay jaamacaddu qorsheysay ardaydooduna waliba ay qayb weyn ka qaateen in dadkan masaakiinta ah oo waliba laga yaabo qaarkood inay hooy fiican degneen qaarkood laga yaabo inaysan cunto haysanin in marka fikradaasi ardayda iyo maxaa la yiraahdaa maamulkiina loo geeyay dhaqaatiirtina ay ka qayb qaadatay marka la keeno insha Allah saasoo barnaamijkeena nagu dhamaaday barnaamijka taakulaynta dadka barakacayaasha ah oo laga bartay jaamacadda Jazeera hadafkeeduna ay tahay ardayga inaan la siinin shahaado kaliya bal la siiyo maxay ahayd shahaado kale oo ah bulshadiisa in wax ku celin karo Jazeera waxay ku tarbiyeynaysaa ardayda in ay bulshada qaybaha ugu nugul in ay siin karaan macnaha naxariis taas ay ka mid tahay maanta waxyaabaha lagu abaabinayo jaamacadda Jazeera ay u taagan tahay qaybaha in ay bulshada wax ku celiso marka laga soo tago qaybaha maxay ahayd waxbarashada iyo cilmi baarista iyo qaybahaas oo dhan tan waa qayb ka mid ah oo qayb muhiim ah ardaygii maskaxdiisa ama maxay ahayd uu ku abaabayo in uu maxay ahayd markuu qalin jabiyo bulshadiisa wax badan uu ku celin karo taas ay tusaale u tahay barnaamijkan maanta jaamacadda ay qabatay ardayda oo iskaashanaya waxaan u mahadcelinaa dhammaan ardayda jaamacadda guddiga mobile-ka oo madax u yahay Dr. Zakariya student affairs-ka Dr. Yusuf dhammaan ardayda kala gedisan ee baajajka kala gedisan ee jaamacadda Jazeera dhigato dhammaantood maamulka jaamacadda kullu waxaan leenahay jazakallahu khayr maadaama maanta aan sameynay wax ugu muhiimsanaay oo ah inaan barakacayaasha Soomaaliyeed qayb ka mid ah ma gaari karno qayb dadka oo nimid dhan wax ma wada siin qayb ka mid inaan soo gaarsiinay farxadda maxay ahaato soonka ciida wax uun ay labadaan maalmood ay ku farxaan aadaan ugu mahadcelinayaa waxaan arintan maxay ahaato barakacayaasha inaan wax u qabanno waxaad bilowday ma ilaa 2014 ilaa iyo hadda jaamacaddu wada si joogto ah waxa loo sameeyaa taakulayn ah jimco kasta in loo sameeyo mobile markasta waxaan sameeynaa wixii ay u baahan yihiin kaamamka qaarkood inaan u sameeyno wixii ay u baahnaayeen
sida in biyo la siiyo musqulo loo dhiso ardada inay taakuleentaas ayaga isku xil saaraan weli waxaan aad ugu mahadcelinayaa ardada jaamacadda hore oga baxday kuwa hadda dhigto isxilqaanka ay aad u sameeyaan oo ah inay walaalahood caawiyaan arrintaas oo arrin fiican oo qofkana ku baranayo social responsibility oo inuu responsible naftiisa kaliya ka ahaan iyo qoyskiisa laakiin dadkiisa walaalihiis inuu waxa ka yahay mas'uul inuu wax u qaban karo waxa laga yaabaa waxyaabo annaga hadda aanan u arkin inay wax tarayaan inay ayaga wax badan u tarayaan dadkan waxay u baahan yihiin maxay ahato marka ugu horeyso hooy inuu helo wuxuu u baahan yahay maxay ahato dhar wuxuu u baahan yahay wax ku karsan lahaa waxaas oo dhan waxa laga yaabaa guriyeen inay iska buuxaan maalin kasta in qaar la iska tuuro marka waxaas hadii la soo aruuriyo inay ardayda u istaagaan soo aruuriyaan u keenaan hadda waxyaabaha ugu muhiimsan rooba da'ay waxa laga yaabaa dadka qaarkood bac inay u saarneen inuu roob ku da'ayo annagana waxa laga yaabaa inaan guriyo oo sara ay adduunku noolnahay bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Xaawo Muuse Cali waxaa maanta soo booqday ardayda jaamacadda oo Aljazeera oo maanta deeqda noo keentay wayna ku mahadsan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah magacay ayaan Cabdullaahi waxaan u mahad celinaa jaamacadda Aljazeera